السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صاحبتي غالية كسو دوادا mar kale maalin kale weliba sheeko kale waa anigoo ah walaalkiin saaxiibkiin khaliif ani khaliif yari isku soo noqod wanaagsan ismaqal wanaagsan iyo weliba is aragti wanaagsan maanta waxaa inoo wadaa qiso la yaab leh qisadan oo ka dhacday waddanka Ciraaq ma rabo inaan idinkugu dheeraado faahfaahinta sheekada waxaan hore u geli doonaa qisadeena qisadan waxay ka dhacday Ciraaq waxa ayna ku dhacday gabar yar oo 9 jir ah oo lagu magacaabo Fawaatim Fawaatim waxa ay dhigan jirtay iskuul sidaas ay tahay iskuulka ay dhigato waxaaba macallimad ka ahayd hooyadeed sida caadada ah Fawaatim subaxii waxay u kalaaday iskuulkeeda iskuulka oo aanan sidaas kaga fogeyn halka ay degan yihiin balse nasiib darro hooyadeed iyo ayada isma aysan raacin oo maamada maalinkaasi ma aysan tegin iskuulka xanuun haye awgeed xilliga iskuulka laga soo baxay ardayda sida caadada ah kulli iskuulka markii laga soo wada baxay oo xilligii ahayd inay Fawaatim gurigeeda timaado ma aysan imaanin waa la raadiyey oo maamadeed marka hore shaki ma uusan gelin waxay istiri gabadhaada waxaa laga yaabaa in ardayda qaarkood ay israaceen ay meelaha ay ku ciyaarayaan laakiin Fawaatim ma aysan imaanin saacad kadib 2 saac kadib 3 saac kadib xilligii ay ka soo wareegatay 3 saacadood maamadu waxa ay bilowday in ay u qaylo dhaamiso xaafadaha deriskooda ayadoo weydiinaysa gabadheeda inay arkeen in kale laakiin qof u sheega waa ay weysay waxa ay si toos u aaday iskuulkii ayada iyo Fawaatim aabaheed labaduba iskuulkii tageen ayagoo weydiinayaan inay gabadhooda saakadii horeba iskuulka ay timid iyo inaysan imaanin laakiin waxaa loogu jawaabay inay timid xisooyinkeedana si caadi u qaadatay xilligii ardayda ay baxayeenna ay albaabka ka wada baxeen haddaba halkee ka baxday Fawaatim si walba oo loo raadiyo iyo meel walba laga fiiriyey Fawaatim marnaba ma aysan helin siday u socdeen saldhigga booliska ugu dhawaa ayay tageen booliska waxa ay bilaabeen baarista gabadhan yar iyo halka ay ku luntay iyo halka ay ka baxday balse ayagana wax natiijo ah ugama aysan soo bixin raadinta gabadha waxaa jiray nin abti u ah Fawaatim oo ahaa muqaabaraadka ciidanka Ciraaq waxa uu ka tirsanaa ciidanka dharcadka ee muqaabaraadka Ciraaq waxa ay wargelisay Fawaatim hooyadeed wiilkii la dhashay ama Fawaatim abtigeeda sida uu yimaado gabadhana oo dhinaceeda kaga raadiyo waxay ku tiri adiga ayaa ah maanta qofka garabka looga baahan yahay oo waxaan u baahanahay inaad khibradaada iyo weliba mansabka aad haysato inaad gabadheena noogu soo raadiso oo aad wax warbixina nooga keento hooyada halkaasay ku ooynaysaa aabbaha halkaasuu ku barooranaya qof garab siinaya male aanan ka ahayn abtigeed inkastoo uu aad kaga fogaa goobta gabadha lagu waayay haddana waxaa dhacday in uu yimaado weliba uu u raadiyo gabadhooda maadaama asaga laftirkiisa abti uu yahay oo waalid ugu aadan yahay waxa uu tegey saldhigga booliska asagoo weydiinaya warbixinta gabadha laakiin ciidamada booliska ee goobtaas joogay wax warbixin oo muuqata oo caddeyn u noqon karta raadinta gabadha ama sheegi karta ama wax uun oo lagu sii tixraaci kara ma aysan siinin Fawaatim abtigeed waxa uu go'aansaday in uu gabadha u raadiyo his way macnaha in qaabku asaga yaqaano ama systemka uu yaqaano inuu gabadha u raadiyo asagoo weliba caawimaad ama garab ka helaya asxaab asaga la shaqaysa oo muqaabaraadka kala shaqaysa waxa uu hawsha ka bilaabay waana muhiim meel walbo aad hawsha ka bilaabayso waa inaad ogaataa jiridda haddii aadan aqoonin aasaaska shayga ama halka uu ka soo bilowdo waxa adagtaa inaad hesho wuxuu dib ugu laabtay iskuulka gabadha asagoo weydiinaya warbixinta wuxuuna ka soo helay warbixintii oo dhammaystiran gabadha xilligii iskuulka soo galaysay inay u soo gashay nidaamkii caadiga ahaa ayna kaga baxday waqtigii loogu talagalay ee xisooyinka ay ku ekaayeen tamam maxaa xiga marka wuxuu u raadiyey agagaarka guryaha ku yaala iskuulka ha noqoto kuwa dukaamo ah ama maqaaxiyo wax walba oo halkaasi kaga ag dhowaa ayuu wuxuu isku dayey inuu warbixin ka helo tamam maxaa dhacay marka guriyihii weydiiyey gabadhan inay arkeen inay warbixin un ka heleen wax warbixina kama uusan helin laakiin nasiib wanaag waxaa goobtaasi ku yaalay dhowr kaamirood inkastoo aysan kaamirooyinka meeshaasi ku yaalay aysan badnayn haddana waxa uu ka helay dhowr kaamiro oo ku tixraaci karo haddii gabadha ay martay wadadan iyo haddii aysan marin laakiin kaamira ka mid a waxay qabatay gabadha oo iskuulka ka soo baxday oona maraysa wadada halbowlaha macnaha wadada weyn mar alla markuu sii dabagalay inay gabadha meel sidaas kaga fog inay tagtay in kale waxa uu ogaaday gabadha in ay gashay xaafad u dhow xaafadooda si aad u fahantaan sheekada gabadha mar alla markay iskuulka ka soo baxdo ay gurigooda ay u socoto waxa ay soo dhex martaa xaafadda iskuulka ku yaallo kadib xaafad dhexe kadibna xaafadoodii ayay gashaa gabadha xaafadda iskuulka uu ku yaallo way ka soo baxday
xaafadii iskuulka iyo gurigooda u dhexaysay soo gashay laakiin nasiib darro kama aysan soo dhex bixin xaafadan oo waxay ku hakatay halkii dhexe. abtiga wax uu bilaabo marka xaafadan dhexe in uu guri uga baaro gabadha uu abtigu yahay ilaa uu abtiga ka yimid guriga lambarkiisu uu yahay 15. gurigan yaa degan, gurigan waxaa degan nin lagu magacaabo Axmed. wuxuu arkay mar alla markuu guriga u garaacay albaabka laga furo wuxuu arkay Axmedka oo guriga ka dhex qodayo god. wuxuu yidhi maxay tahay godkan aad gurigaaga ka dhex qodaysid? wuxuu yidhi maya, alaab uun baan rabay wasaq iyo waxaas inaan halkan ku duubo. abtiga shakiga halkan ka gala marka wuxuu yidhi ma god caadi ah mise waa qabri? ma qof inaad ku dugtaad rabtaa? mayuu yidhi caadi le, godka waxbaan ka qodaya. markaasuu yidhi okay, waa kaa shakiyey, waxaana rabaa inaan gurigaaga baaro. wuxuu ku yidhi maxaa baaraysaa oo kaa maqan? markaasuu wuxuu yidhi gabadha sawirkeeda tuso, gabadhan Fawaadim la dhaho ayaa naga maqan ee adiga ma aragti? wuxuu ku jawaabay ma arag, gabar noocaana ma arag, uma malaynayo. wuxuu yidhi marka gurigiinaan baarana, tafadal yidhi baar guriga. abtiga gurigiyuu galay, qaybta hoose guriguu baaray, wax waa uu ka waayey nasiib darro. qaybta kore guriguu koray. mar alla markuu koro wuxuu arkay firiijka maaragtay barafka iyo waxyaabaha qabowga lagu rido oo guriga qaybta kore yaallo arkay. mar alla markuu firiijkiisaan u furay mise subxaan allah, gabadhii yareed Fawaadim oo qaawan misana dhimatay ha ka soo horbaxdo. isla markiiba ninkii Axmed ahaa waa la xiray, waxaana la geeyey saldhigga. su-aal weydiinta mar alla markay ku bilaabatay ee la wareystay lagu yidhi maxaa kuugu kalifay inaad gabadhan disho? wuxuu ku jawaabay aniga ma dilin. sax waan rabay inaan aniga gabadhan godka aan qodayay, sax ayadaan qodayay inaan ku duugo, laakiin aniga maaha qofkii gabadhan dilay ee waxaan rabay keliya inaan meydkeeda asturo. haddaba yaa dilay marka gabadha? wuxuu ku jawaabay gabadhan aniga ma dilin ee waxaa jira walaalkay oo gabadhani ku xadgudbay misana dilay. anigana ma rabin walaalkay inay dhibaato kaga timaado, sidaas darteed waxaan rabay inaan ceeb asturo. okay, haddaba waa kuma walaalkiisa? walaalkiisa uu asaga sheegayo waa nin maskaxda looga jiro, waa nin waalan oo maskaxda looga jiro. marka si oo asaga dembiga uu galay ama qaladka uu sameeyey iskaaga dhex saaro, wuxuu dembiga madaxa u saaray walaalkiisa. laakiin sheekada sidaas ninkan looguma harin oo isla markiiba mar alla markii la cadaadiyey si adag ma aragtay su'aalaha looga badiyey, geesaha laga soo maray, keliyaha marka laga garaacay, odagan isla markii waxa uu qirtay inuu gabadha asaga dilay, weliba kufsaday. waxaa la yidhi ka sheekay, gabadha siday gurigaaga u timid, sideese gurigaaga u soo gashay? wuxuu yidhi guriga irdiisaan fadhiyey, markaasna alcoholaan cabay oo qamri iyo waxbaan cabay, waa cabsanaa. gabadha gurigayga soo hormartay, waxay hor istaagtay guriga, asaga darjiinka gurigiisoo fadhiya, marka guriga banaankiisoo fadhiya. waxa ay fiirisay yidhi geed gurigiisa ka baxayay, aduu geedkii gabadhii ka heshay. markaas wuxuu ku yidhi ka waran haddii aa raacdo guriga ay la gasho si aan kuu siiyo, haddii aad rabto, waa wax la cuno, geed macaan waa. waxay tiri markood way cabsato yidhi gabadha, oo inay ila soo gasho guriga way ka cabsatay. laakiin mar alle markii xoogaa aan ku yara adkeeyey oo aan ku sasabay way ogolaatay inay guriga ila gasho. mar alle guriga markay ila soo gashana waxaan ku yidhi bal intaanba timide kor waxaa yaallo asagoo maaragtay aan meesha geeyey, hadda geedka kan geedku saaran yahay ceeriin waxba iskugu jiraan, mid bisilo waxaa jiro qaybta kore aan saaree kaalkaasaan kusoo siinaya. ayadoo aanan ka lablabeenin kore ii raacdo yiri gabadha. hadda gabadha uu ka sheekeynayo waa 9 jir, waa 9 years old. allah, waa 9 sano jir gabadhuu ka sheekeynaya, inkaar allah ku ridee. waxa uu yidhi mar alla markii aan korkornay waxaan bilaabo dhahay inaan gabadhii si adag dharka aan kaga siibo oo aan qasbo oo aan ku xadgudbo oo aan ku soo laablaabto, macnaha ka soo bilaabo 3 galabnimo ilaa laga gaaro habeenkii 10 oo kula laabanayo gabadha. stiil gabadha waa ay nooleed, inkastoo aad dareemi kartid gabar waqtigaasi intaas la eg xadgudub lagu sameeyey, weliba 9 jirna ah, nolosha ku jiri karto sida ay tahay, qaabkee ayayna ahaan kartaa? wuxuu sheekadiisa ku daray gabadha in ay iga baryeysay inaan sii daayo oo aan fasaxo intaan aan ugu ekeeyo, laakiin ujeeddada aan gabadhan gurigayga u soo geliyey ma ahayn inaan dilo, keliya waxaan rabay inaan ku xadgudbo. waxay iga barisuu yidhi in badan oo badan oo badan inaan gabadha fasaxo, laakiin waa cabsanaa oo dareenkaasi iyo naxariistaasi qalbigayga marna kuma soo dhicin inaan fasaxo ama inaan ka kala yareeyo xadgudubkaan ku sameynayo. waxaana sameeyey yidhi inaan ciiji ku qabto gabadha yareed oo aan dhowr daqiiqo aan ciiji ku hayay. maraal markaan sii daayay aan is yiraahdana waa ay dhimatay ee welina ay nooleed. haddana mar kale aan ku damcay aan ku dayay haddana inaan dilo
oo aan ciijidii si la mid ah aan ugu qabtay, laakiin haddana weli nafta ayaa ku jirtay. Markuu ugu dambeysay waxaan soo qaatuu yiri xirig oo meesha yaalay fiilo, fiiladaasaan ku ciijiyo yiri ilaa ay ka naf baxdo. Waxaana ku riday fridge-kii meesha yaalay, waana ku daboolay. Xilligaasna waa ay dhimatay. Waxaan damcay inaan banaanka u soo qaado, laakiin banaanka waxaa badnaa indhaha oo maana soo bixin karin. Waxaan go'aansaduu yiri marka inaan guriga dhexdiisa god uga qodo oo halkaasi aan ku duugo. Laakiin caqabadii ay haysatay waxay ahayd inaanan haysanin badiilka lagu qodo godka. Bes waxaan sugayuu yiri ilaa waayiga uu ka baryo. Markuu waayiga baryay waxaan u soo baxay inaan soo iibsado badiilkii ayaan sidii ku soo iibsaday. Guriga dhexdiisa ayaana sidii godkii kaga bilaabay inaan kaga qodo. Anoo god qodistii wadana waxa albaabkayga soo garaacay abtiga gabadha, isagoo uu ka shakiyey godkii aan qodayay iyo sababta aan godkaasi aan u qodayo. Sidaas ayaana laygu soo qabtay anigoo falkii dhammaystirkeedii aan hayo. Ninkii Axmed ahaa sidaas ayay ku kala caddaatay inuu ahaa ninka dilka gabadha u geystay. Waxaa lagu xukumay dil toogasho. waxaan idin leeyahay asxaabtada qaaliga, qisadii xanuunka badnayd ayaan idiin waday, halkaas ayay ku eg tahay. Fadlan haddii aad ku cusub tahay janalkeena, subscribe inoo saar, jariskana furo si ay kuu soo gaaraan qisooyinka dambe aan soo dhigi doono. waa anigoo ah walaalkiin saaxiibkiin khaliifani khaliifare. waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgeliyo.